السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك كحنا جنرال كيغا أيام قلبي وفشل كسر ولا عاوة إيو مقال عصب هذا جنرال كحسب تاع سبسكرايب نوصل فيديو لايك راي كومنت نكبحي با وما سنتاي عاوة waxaan rabaa in aan ka hadlo dhagarta nimanka taraaglayaasha ee ku nool wadankaasi Mareykanka ee u geystaan dumarka Soomaaliyeed marka ay tagaan qaaradaha Asia iyo Afrika kuna dhibaateeyaan gabdho badan oo Soomaaliyeed sidoo kale nimanka ayaa fadeexooyin iyo waji gabax kala kulmay dalka Mareykanka ee ku nool yihiin kadib markii la isku sheegay lagana bartay qaarada oo idil sida awgeed ayaa waxay ku qasabtay lacagaha ay ka shaqeeyaan taraaga ay wadaan ee dalka Mareykanka in ay awood ugu sheegtaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha Asia iyo Afrika kaga faa'iideystaan dhaqaalaha ay haystaan ragaas ayaa ku soo batay sanadihii ugu dambeeyay qaarada Afrika iyo Asia caawo ayaana barnaamijkaas faaqidi doonaa kana hadli doonaa gabdhaha Soomaaliyeed uga digi doonaa inta aan barnaamijkeena u sii guda galin waxaan rabaa inaad ila daawataan gabar kamid ah YouTube leeda ama baraha bulshada aad looga yaqaano ee magaceeda la yiraahdo Amiira Qurux gabadhaas ayaa barta ay ku leedahay YouTube-ka dad badan oo ku xiran channelkayga su'aalo ku soo weydiiyeen kagana jawaabaysa su'aalahaas ayaan rabnaa iyo barnaamijka gabadhaas laga wareystay in aan sii faaqidno wax badanna dadka Soomaaliyeed kaga ifino iyo inta aan xaaladaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo systemkooda aan ka ognahay haddaba Amiira Qurux ayaa dad kamid ah dadka ku xiran barta ay ku leedahay YouTube-ka su'aalo ku weydiiyay su'aaluhuna waxay ahaayeen sida soo socota Amiira Qurux meelahan ka muuqdo ama sawiraantood la arkaba aaba jiro marka dibkaas abiyo akaata dhahay like bartu marka sameeynaayo magaca waa qarina su'aasha ugu horeysa hada ka bilaawaya qofkan wuxuu isoo dhahay samboorkii daawo ma heshay maya samboor daawil ma u helin daraada waxa soo dhahay Instagram qofba wuxuu soo qoray dadka su'aalaha weydiinaya ayaa waxay dhaheen ishak markii su'aalaha jawaabta soo qaato dadka qaar ma jeclo in magacooda ay shaashada iyo wax laga arko marka dad badan ka codsadeen markii su'aalaha iyo waxa ay ka jawaabayso in magacooda loo qariyo samboorkiina seekan batay Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay caafimaad ku siiyo walaashay oo samboorka Ilaahay daawo degdeg kugu keeno bal noo sii wad su'aalaha soo diin kalo arki way asan u sameeyay maaha taas muhiim ma ahan anina maaragta noloshayda gaarka ama inii soo bandhigo ama maaragta maanta aan soo qosqosloom ani fadhino qof walba dooqo lahaa kara waxaa ninkaaga maxaa loo arki waayay waxay tiri in maahan noloshayda gaarka inaan ka hadlo ama aan soo bandhigo oo dadka aan la wadaago anagoo isla ku qoslayna iyo waxaas in aan dadka la wadaago ayay tiri barnaamijka gadaashiisa ayaan ku faaqidi doonaa sababaha keenaysa waxaas oo dhan bal noo sii wad maanaya Amiira Cadde ninkayga mar walba uu yimaada waqti ma ogoona laakiin aniga ma idin soo bandhigi ama meelaha ma soo dhigi markuu yimaado laakiin markuu yimaado waxa la igu dareemaa Instagram ama Snapchat-kayga cunto soo dhigdhigaano cunto karinaano naga iska dhiga marka su'aasha saddexaadna waxa waaye su'aasha kale walaalo wajigaaga maxaa marisaa sida daacad adigoo ka hadlaaya hadda wajigayga wax ma mariyay laakiin waxa la weydiiyay ninkaaga goormo imaadaa waxay tiri ninkayga wuxuu markuu imaado ma soo bandhigo laakiin markuu imaado Snapchat-kayga iyo Instagram-kayga ayaa laga dareemaa oo cuntooyin iyo waxyaabahan soo dhigaa arkayseen Amiira Qurux ayaa wax badan kaga hadashay videogan laakiin wax badan aysan ayadana ogeyn dad badan ogeyn waa soo deedoonaa caawo bal Amiira Qurux ogaada inay jirto dad oo YouTuber ah laakiin oo nolol leh oo nolol qabo oo nolol gaar ah ama private u ah muhiimna ma ahan inuu ka soo muuqdo ama nolosha dhan ba in la soo bandhigo private u tahayna micnaheeda ma ahan noloshiisa inuu maaragto oo ku qanacsaneen ama maaragto hadoo idin soo bandhigeen xataa noloshiisa gaarka ah ma aha inuu ku qanacsaneen noloshan hadii loo soo fsaan loo fiiriyo waxa wanaagsan ama farxad badan nolosha private ka alxamdulillah nolosheeda waa ku qanacsanahay waana jeclahay waa ku faraxsanahay laakiin su'aashan hadda qofkan isoo weydiisay oo sida daacad oo Ilaahay igu ogyahay hada ka jawaabo maya ninkayga naag kala ma qabo waqti walba oo jecel yahay oo yimaada soo idinkin ma idin soo bandhig micnaheed ma aha inuu naag kala qabo micnaheed ma aha inuu maaragtay oo waxyaabo aan khakharino idin hada waxyaabo hatta even ka soo qaata
أمير قروح أيا برتي إذا كجت جواب شيء سؤالها waxyaabo badan ayaa lagu weydiiyay sida hadda aad maqlayseen ninka uu naakala muuqaba maxaa u soo bandhigin goormo imaada waxyaabo noocaas cawada wax badan ayaan rabaa inaan ka hadlo horta ninka Amiir Qurux waxa la yiraahdaa Hanad Ibrahim Ali wuxuu ku nool yahay wadanka Mareykanka ee Minnesota Hanadka ayuu ku magac dheer yahay barta Snapchat-ka ayaan muddo 5 sano ah isku naqaanay bartiisa Snapchat-ka baan friend isku nahay waa nin taraagla Mareykanka degan taraag wada lacagta ugu badanna sida uu hore ugu cadeeyay cadeemana aan dib ka keeni doono wuxuu iiga sheekeeyay in qarashka ugu badan Nairobi iyo inuu ku bixiyo Asia Hanad ayaa aabba dhalay 4 caruur ah ku dhalay gobolka Minnesota kagana tagay hooyadood muddo sanad laga joogo Hanad ayaa nin gabdhaha Soomaaliyeed ee degan Mareykanka ama Minnesota inta badan ba ay og yihiin qaar badanna xumeeyay dhibaateeyay sida aad qoraalkaas hadda meesha kore ay kaga jeedaan waa gabar kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo Hanad ku xumeeyay magaalada Minnesota gobolka Minnesota Hanad ayaa inta badan ba jecel inuu gabdhaha Soomaaliyeed ku ciyaaro oo ishaag maxaa la ciyaarsiyo Hanad sida meeshan aan u jeedaanba gabar baa waxay soo tiri ay xiriir lahaayeen oo xumeeyay السلام عليكم سلام كدب waxaan rabaa inaad isoo wacdo hadaad wax xumaan ah ii qabin wax walbo aad aaminsan tahayna wallahi waa qalad waana lagana dhex faa'iideystay hadaad wax garatahay bariis isoo wac maanta aragtidan ku arkay wallahi waan rumaysan waaye waana ku soo deg lahaa ama ku soo wici lahaa waxa durbuba soo xasuustay hadaa islaan tahay ilaa hadda meel ayaan fadhiyaa waxa dhacayana waan fahmi lahay Hanad waa aniga oo heblaaya ah adiga iyo ragnimadaada jawaabta gabadhan maraba magaceeda inaan meeshan ka sheego laakiin gabar Hanad 3 sano ama 3 sano ku dhawaad ilaa 3 sano bar saaxiib la ahayd way gobolka Minnesota degan gabadhan arimo jira awgeed ayaan magaceeda iyo astaamaheeda iyo systemkeeda badan u qarinay laakiin gabadhan ayaa gabar waxay tahay Hanad muddo badan ishaag maxaa la yiraahdaa oo xumeeyay gobolka Minnesota ku silcinayay asaga ayaana ishaag maxaa la yiraahdaa arintaas hore iigu sheegay igala wadaagay gabadhana way ila soo xiriirtay hadda ka hor oo arintan way ii sheegtay oo in aan la hadlo asagina waa la hadlay waxna wuu ka qabo waay arintaas Hanad horta yuu yahay muxuu yahay Hanadku dad badan baa isweydiinaya Hanadku soo u yaala waa sanin nooc ah Hanadku waa ninkaas aa ujeedaan السلام يا قيادة ما قاعد شرفت يلا بدنا شفتها اسمعوا في دعاء ونكا فناندو جودن له Hanad ayaa lacagta ugu badan wuxuu ku bixiyaa gabdhaha Soomaaliyeed Hanad ayaa lacag badan ka sameeyay taraag what السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحرن جنرال كان waxaan caawa sif aan aad u faaqidi doonaa gabadhan oo leeyahay Amiir Qurux ayaa baraha bulshada caan ka ah gabadhan ayaa YouTube-keeda dad badan su'aal ku soo weydiiyeen sida video ka daawanayseen gabadhan ayaa inta badan ninkeeda qarisa Hanad ayaa ah taraagla degan wadankaasi Mareykanka Hanad ayaa ah nin ilma iyo xaas kaga tagay sanad ka hor wadanka Mareykanka Hanad ayaa sidoo kale ku guursaday magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya 2 cunug ayuuna ka dhalay gabar Soomaaliyeed kuna dayacay kana tagay sidoo kale Hanad ayaa gabar Soomaaliyeed ku guursaday wadankaas Soomaaliya gaar ahaan magaalada Hargeysa sidoo kale cunug ayuu ka dhalay kagana tagay meeshii Hanad ayaa hadda kama dambeys waxa ay iscalfadeen gabadhan la yiraahdo Amiir Qurux Hanad ayaa ah nin aad gabdhaha Soomaaliyeed ugu ciyaara Hanad ayaa ah nin sida lagu sheego ama dadka yaqaano ay sheegaan oo la nool wadankaas Mareykanka kula nool nin deeqsi ah gabdhahana lacag badan ku bixiya sida meeshan kaga jeedaan Hanad ayaa wuxuu soo qoray lul best buzi ever laakiin nadaafad xun waa gabar oo ishaag maxaa la yiraahdaa Snapchat sharaad looga sameeyo ayuu ku soo qoray hadalkaasi asaga oo ku cadeynaya gabadhaas inuu la galmoodo laakiin nadaafadeeda xumeed Hanad ayaa ah nin aad u tumasho badan gabdhaha Soomaaliyeedna ku ciyaaro Hanad ayaa lacag badan u adeegsada helida gabadha ay ka qurux badan tahay kuna ciyaara Hanad ayaa ah nin lacagta ugu badan ee uu ka shaqeeyo traaga ee wadankaasi Mareykanka ku bixiya dumarka Soomaaliyeed haddaba Hanad
waxaan kaga digaynaa gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale gabadhan walaasheenna waxaan leenahay Allah ku barakeeyo laakiin il gaar ah iskaga fiiri hanad nin qosla ama nin ciyaara maahan ayaan ku leenahay oo la iskuma halay karo oo nin lahubana maahan walow hadda laftigeeda hanad la sheegayo in laba xaas kale uu leeyahay gabadhan oo ku qasbay in aysan sawirkiisa ama fiidiyokiisa aysan soo qaadan sida si aysan xaasaska kale u arkin muuqaalkiisa taas ayaana sabab u ah gabadhan in ay qariso ninkan xajigeeda ah ee la yiraahdo hanad si shargareeya barnaamijka like-tana ka iloobinina waanu jecelnahay gabdhaha Soomaaliyeed difaacoodan u taaganahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu intaan barnaamij noocan oo kale idin soo gudbi doono fiidiyowga ka iloobin in aad la gareysid commentina ka bixisid gabdhaha Soomaaliyeedna ha noolaadaan meel kasta ay joogaan cadowga iyo dhibka Ilaahay ha ka qabto iyo ragga ugu talagala in ay ku ciyaaraan markasta sharaftooda iyo cisigoodana dhulka inay geliyaan raba ayaga oo dhaqaale adeegsanayo ayaan ishaag maxaa kaga ku talagalnay fiidiyowgan inaan ka soo duubno caawo kuna bayaanino wax badan oo aad u badan waa mahadsantiin asxaabta channelkeena dad ku cusub tahay subscribe saab wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh